war farxad leh dhammaan dadka ku hadla luqadda Faransiiska war wanaagsan warkan wuxuu ka soo baxay IRCC 6 bisha July waxay sameynayaan investment qiimihiisu yahay 1.3 billion oo ay ku tala galeen inay kor u qaadaan French speakerska ku nool dalka Canada aw shirkiisa soo socotaan Canada taariikhdeeda 1950 iyo 550 waxa guumeystay Faransiis ilaa haddana kama maqna oo soo socotaan Quebec waxay ku hadashaa Faransiis hadda waxay wadaan in shariif ay rabaan inay ku dhiirigeliyaan dadka ku hadla luqadda Faransiiska haddii aad luqadda Faransiiska ku hadasho sida dadka ku nool Djibouti fursad weyn baa ku banaan information badan ayaan soo gudbin doonaa khusaya barnaamijkan waxaad chance u leedahay inaad xariisato waxa la yiraahdo temporary work visa haddii aad luqadda Faransiiska ku hadasho waliba dad Djibouti ku dhalatay you don't need inaad test samayso because luqadda already waad ku dhalatay sidoo kale dadka luqadda bartay Faransiiska ee gaadhay level B2 iyaguna waa play karaan insha Allah warkii soo kordhay soo socodsiin doonaa wad mahadsantiin fadlan fiidowga dad waafacay la wadaag sidoo kale